Diblomaasi Media ayaa daawanaysan kuna soo dhawaada qaybta wararka Soomaaliya. Xilli aysan deganaansho siyaasadeed ka jirin Soomaaliya, dhinacyaduna ku kala tagsan yihiin doorasho ilaa dastuur. Waxaa banaanka u soo baxay toddobaadkan qorshe loogu magac daray dib u habeynta guud ee dalka, kaas oo soo jeedinaya in muddo ku siman 2 sano loogu diro hay'adaha dowladda federaalka. Sida ay sheegeen ilo wareedyo iyo diblomaasiyiin xoogaal ah, tubtan ayaa mid ay diyaariyeen khubaro shisheeye iyo xubno ka socda madaxtooyada Soomaaliya. Diiradana waxaa lagu saarayaa in lagu qoro habraacyo loogu yeeray dib u hagaajinta dowladnimada Soomaaliya. Qorshaha iyo olole siyaasadeed oo ay horey suuqyada siyaasadeed u keeneen xubno ku dhow madaxweyne Xasan Sheekh ayaa iswaafaqaya, waxaana sadarada ka dhex muuqda jantusi sheegaya dhismaha xukuumad iyo jaangooyin la xiriirta nooca doorashooyinka dalka, iyadoo sida lagu qorayba warbixintan lagu sheegayo in laga guurayo hanaanka doorasho dadban 24 bilood gudahoodna lagu qabanayo doorasho dadweynuhu ay cod ku leeyihiin. Warbaahinta oo heshay nuqulada qaar ka mid ah loona diyaariyey si farsamaysan, waxaa ka dhex muuqda villa Soomaaliya inay roclo ugu jirto sidii ay ugu qancin lahayd fikradeeda siyaasiyiinta ee dadka ka aragtida duwan, sidaas oo kale u caadiyeyn lahayd inay tahay wax sax ah in laga doodo damaceeda, taasi oo durba muujinaysa in siyaasiyiinta qaarkood ay si toos ah uga hor yimaadeen oo fahmeen. Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, hogaamiyaha xisbiga Wadajir, oo ku tilmaamay qorshaha cusub mid dhalanteed ah oo muujinaya sida madaxweyne Xasan Sheekh u joogo aag cidlo ah, una aaminsan yahay fikrad dhalanteed ah oo gudaha dalka ka shaqeynayn, taas oo uu sheegay in loo baahan yahay inaan lagu katoomin, sida uu ku cadeeyay fariin diblomaasiyadeed oo uu kula hadlay wakiilada caalamiga ah oo u baahiyey. Soo jeedintan waxay ka kooban tahay 5 bog. Waxaa ka dhex muuqda qodobo waaweyn oo muujinaya in 2 sano gudahood lagu qabanayo oo ay ku jiraan dib u dhiska xukuumad wadaag ah, geedi socod aan baarlamaanka awood lahayn, shaqooyinka la qabanayana ay qeexan yihiin. Ha yeeshee siyaasiyiinta gudaha ayaa sheegaya inay tahay mid aan meelmar noqon karin. Sida ka muuqata qoraalka waxaa lagu cadeeyey in shaqooyinka hortabinta lagu qabanayo si degdeg ah, iyadoo ay qabanayaan siyaasiyiin aan lahayn ujeedooyin siyaasadeed oo durbo dhaawacaysa soo jeedinta kana dhigaysa mid aan dhab ahayn, maadaama ay adag tahay in Soomaaliya laga helo siyaasi aan han lahayn. Dhamaystirka dastuurka qaranka ayaa qorshaha cusub lagu daray, iyadoo horey madaxweynuhu u sheegay in wax ka beddelku uu ansax yahay oo uu saxiixay 4 cusub, balse soo celinta cusub ayaa ka dhignaanaysa waqti dheeraarsi. Sidoo kale dhismaha maxkamadda dastuuriga ayaa ka dhex muuqda qoraalada, taas oo dhammaan dhinacyada siyaasaddu ay aad ugu kala tagsan yihiin. Inkastoo madaxweyne Xasan Sheekh madaxweynaadkiisu gabaabsi ku dhow yahay kuna jira 7 bilood ee ugu dambeysay si qorshahan loo shaaciyo, waxaa la aaminsan yahay inay tahay tijaabinta falcelinta bulshada iyo siyaasiyiinta aragtidiisa diidan, iyadoo qiimeynta hordhaca ay muujinayso inay jiraan diidmo xoogan. Haddana qorshaha waxaa ka dhex muuqda shaqooyin ah in la qabto 4 sano ee la soo dhaafay. May 2028 in la qabto doorashooyin toos ah oo dalka oo dhan ayaa ku qoran tubta, taas oo sheegaysa in doorashada lagu gelayo nidaam doorasho qof iyo cod ah. Dowladda federaalka waxay hadda sheegaysaa in bishan dhammaadkeeda ay qabanqaabinayso doorashada golayaasha degmooyinka, walow aan lahayn heshiis siyaasadeed. Isbeddelo dhaqan siyaasi ah. Qorshe wuxuu ka dhigan yahay isku day lagu doonayo in lagu burburiyo wareegga siyaasadda uu hadda ku dhisan yahay shakhsiyaad iyo kooxaysiga, waxaana la qoray in lagu bedelayo nidaam dowladeed oo ku dhisan sharci iyo awood dowladeed, iyadoo tani ay u sawiran tahay in meesha laga saarayo hanaan siyaasadeedka Soomaalidu ay horey ugu heshiisay 2004 iyo 2012 loona guurayo hab cusub oo tafaasiil badan laga bixinin. Si aan looga didin qorshahan cusub, waxaa lagu qoray in hoos loo dhigayo muddada 2 sana awoodaha ay leeyihiin madaxweynaha iyo baarlamaanka, iyada oo door la siinayo madaxbanaanida maxkamadaha dastuuriga. Waxaana muuqataa ka sokow diyaarinta in lagu dhex daray tubtan qodobo muujinaya awoodda oo hal gacan ku ururaysa, halis iyo caqabadaha ka muuqanayo. Isdiido siyaasadeed. Xisbiyada iyo madaxda hadda jira waxaa u arkaan in tani ay tahay qorasho loogu talagalay in lagu soo afjaro saameyntooda, taasi oo dhalin karta mucaarad xoogan kalsoonida shacabka. Dad badan waxay dirbo u arkaan inuu yahay muddo kororsi cad oo toos ah oo aysan suuragal ahayn qabashada tallaabooyinka dhexdooda lagu xardhay. Dowlad goboleedyada ayaa si xoogan u diidan. Puntland iyo Jubbaland oo aan haddaba ogoleen dhammaan wax ka beddeladii la sameeyey waxay u arkaan tan inay tahay been abuur kale. Halis amni oo xoog leh ayuu qorshuhu wataa,
ciidanka in la siyaasadeeyo inkastoo qorshuhu ku celcelinayo in hay-adaha amniga madax bannaan yihiin haddana xaqiiqada dhabta waa in hay-adaha amnigu weli ku xiran yihiin kooxaha siyaasadda dowladda iyo siyaasadda qabaa'ilka taasoo khatar gelin karta damaca khatarta argagixisada iyo khilaafaadka gudaha dadka amniga la fagura ayaa sheegaya in mar kasta oo gudaha isqabqabsigan uu bato ay ka dhigan tahay in si xoogan kooxaha argagixisadu ay fursad u heli karaan halista sharci iyo maamul siyaasiyiinta guduhu waxay sheegayaan in isbeddelkan ballaaran ee dastuur karsoor amni iyo doorasho ay tahay howl aad u culus oo madaxweyne xasan laga doonayo in horey loo soo qabto haddana aysan jiri karin sabab muddo dheeraad ah looga fekero taageero caalami ah iyo dhaqaalo ayuu qorshuhu u muuqdaa inuu u baahan yahay laakiin hadda taasi Soomaaliya kama hirgeli karto madaxweyne xasan wuxuu sheegayaa in waqti u baahan yahay xubno kala duwan oo la kulmay madaxweyne xasan sheekh ayaa sheegaya in laga dhex akhrisanayo fariimihiisa siyaasadeed inuu quldareynayo helitaanka muddo dheeraad ah wuxuu ku dooday in madaxweynihii ka horeeyay uu helay ku dhawaad 1 sano iyo bilo dheeraad ah isaguna hanaanka qabashada doorashooyinka uu la durkin karto taas oo macnahaan ka dhigan xasan sheekh inuu ku dhacayo isla arintii uu hore u diidanaa siyaasiyiinta mucaaradka ayaa goorsi horeysay sheegay inaan la aqbali karin muddo dhaaf doorasho ayna tahay madaxweynuhu inuu ku soo dhawaado miiska wadaxaajoodka oo la go'aan laga gaaro hanaanka ay u qabsoomayaan doorashooyinka bilaha kooban muddadooda ay ka harsan tahay taas oo aan hadda soo muuqan intaas ayaan uga gudbaya qodobkeena xiga ayaan fiirinaya madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro oo maanta qaaday tallaabo culus ayaa kormeer shaqo ku tagay xarunta wasaaradda dowlista hawada iyo horumarinta madaarada halkaas oo uu kula kulmay wasiirkii mas'uuliyiinta sare ee wasaaradda isagoo oo kala hadlay arrimo xasaasi ah oo ku aadan adeega e-visa ee ay soo kordhisay dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaana shirkan laga soo saaray go'aano culus oo la xiriira maamulka hawada oo loo diray diyaaradaha ugu horeyn wasiir Fuaad Axmed Nuur ayaa madaxweynaha warbixin faahfaahin ka siiyay habsami socodka howlaha shaqo sidoo kale madaxweynaha waxa uu kormeeray xarunta maamulka hawada sare oo lagu soo xoojiyay qalab cusub oo suurtagelinaya maamulka hawada sare iyo hay'adda diyaaradaha isticmaalaya marin haweedka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland intii uu kormeerka ku guda jiray madaxweynaha ayaa waxa uu bogaadiyay wasiirku xigeenka agaasimaha guud iyo shaqaalaha dhanka kale Cabdiraxmaan Ciro ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay mudnaan gaar ah siinayso ilaalinta madaxbannaanida hawada dalka iyo in la dhiso awood farsamo iyo mid maamul oo buuxda si Soomaaliland si rasmi ah ay ugu maamusho hawadeeda kormeerka kadib madaxweynaha waxa uu shir gudoomiyay shirka heer qaran ee maamulka hawada Jamhuuriyadda Soomaaliland kaas oo lagaga areensanayay arrimo muhiim ah oo la xiriira maamulka iyo madaxbannaanida hawada Soomaaliland amniga duulimaadyada iyo arinta e-visa iyo qaabka ugu haboon ee loo horumarin karo nidaamka isgaarsiinta hawada iyo maamulka duulimaadyada caalamiga ah ayaa ahaa qodobadii laga hadlay warbixintan qayb ka mid ah waxaa diyaariyay Faarax Cabdiqaadir intaas ayaan saaxiibayaal ku soo afmeeraya la soco qaybaha kale oo aan ku eegeyno xaaladaha bariga dhexe iyo dunida muslimka oo aad aalaba ka dhageysataan kana daawataan Diblomacy Media intaan ku kulmi doono